الله وادي السلام يا دمان Somali Fantasy Club كل أسبوع عصبين أقوم في عام مسؤول أنا وابن بودا تشوني أنت عصبنا وسود وينيا كل قدر كان كهل دونا وحوي يعني إن البليرة تابتو فورغست iyo crypto waxay ku kala duwan yihiin dadka inagu cusub ee aan kala fahansaneyn labada suuquna bal inaan u yar bayaamiyo ayaa aniga caawa leegu qoray marka kolley dadka Somali Fantasy Club ku xiran dee madashan weyn ku xiran crypto wax badan bay ka fahansan yihiin crypto waa asset digital oo cusub oo dee dunida hadda waqti dhow kusoo biiray ciddii hadda meel hoose ka raacda amba intaa uu cusub iyo ka faa'iidaysataana waa meel ay mustaqbalka yani wax wanaagsan ka qabsan karto amba waa saameyn dhaqaalay ku yeelan kartaa qofkii hadda ka faa'iidaysta dadkii aan hadda mooganayna waxay noqon doonaan dad laga tegey marka waa crypto waa assetka digitalka ee cusub ee hadda la maalgashanayo forexna waa isku beddelka lacagaha adduunka ka jira sida dollarka iyo yuurada iyo lacagaha adduunka ka jira oo dhan sida Somali shilinka marka la isku beddelayo lacag walba cadad bay leedahay haddii aan yara fahansiiyo dadkan tusaale usoo qaato yuurada iyo dollarka sida looga ganacsado forexta halka dollar tusaalan haddii uu dhigmo 0.5 euro oo euro bay garayso haddii halka dollar uu u dhigmo 0.6 euro waxay noqonaysaa faa'iidadu 0.1ka u dhexeeya 0.5 kaad ku gashay 0.6ka ay tagtay faa'iidada halkaasaad ka qaadanaysaa haddaan si guud u sheegana waxan waa isku beddelkuna lacag baa qiimo dhacda lacagna way kor u kacdaa iyo qiimay yeelataa tusaale ahaan dollarka oo kale markuu qiimo dhaco lacagta shilin Soomaali oo kale amba qiimo yeelata amba lacagaha kale adduunka marka isbeddelka lacaguhu kolna mid qiimo dhacayso kolna mid ay kor u kacayso halkaasoo trade-ku ka dhaca amba faa'iidadu ka timaada kolley dhowr qodob baan ayaan yara tibaaxi doonaayo forex oo kale sida looga ganacsado waa inaad la xidhiidho brokers oo akoon aad lacagtaada ku shubato iyana wax profemis la yidhaha baa jira iyaguna shirkado challenges caqabado ku hordhigay caqabadaha markaad ka gudubto amba stebiska markaad ka gudubto ayaad profit ka samayn kartaa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin baan doonaya inaan yara iftiimiyo forexta iyo cryptadu waxyaabahay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan forextu waa suuq weyn laakiin waa mid ay xakameeyaan bangiyada dhexe saan hore u sheegayba waxaan laga trade garaynaya waa lacagihii sida dollarkii iyo Somali shilinkii iyo waxyaabihii lacagihii caadiga wadamada marka forexta waxaa xakameeya bangiyada dhexe cryptadana ma xakameeya no one weeyaan iyadiyo cidi ma xakamayso waa blockchainka modernka iyo dunida casriga ee ay ku dhisan marka cid maamusha ma jirto haddii aan qodobka kusii daraya kale saddexaad wuxuu noqonayaa advantageka bal inaynu eegno mid walba advantagekeeda sidoo kale disadvantagekeenu eegi doonaa forex oo kale haddaan ku horeeyo advantagekeeda waa more liquidity oo lacag badan baa taala maadaama lacagihii caadiga wadamada yihiin lacag badan baa taala waa sidoo kale waa low volatility oo dhaqaaqoogu wuu yar yahay oo halka dollar iyo yuuradu intay ay qiimo dhacaysa amba kor u kacaysa waa wax yar sidoo kale xakameyntooduna bangiyada xakameeya 5 cishayna furan tahay 24 saacadood 5 cisho waxaan ka wadaa weekendiga marka laga reebo sabti iyo axad cryptada faa'iidadeeda haddii aan ka sheego dhowr qodob waa high volatility oo dhaqaaq badan bay leedahay awood bay leedahay coin aad maanta maal gashatay baa berri laga yaabaa inuu xoog u kaco marka aad faa'iido macquula markaaba degdeg aad uga hesho way ka faa'iido badan tahay marka dhanka degdega laga eego cryptada ka faa'iido badan tahay sidoo kale 7 days kay furan tahay halkaana way kaga fiican tahay wayna daah furan tahay waxay ku dhisan tahay blockchain bay ku dhisan tahay cid walba ay daalacan karto transactions maxaa la transferkana waa loo isticmaalayo transfer degdega inay wada ogtiin baan malaynaya dadka forex ka ganacsado kale markay lacag payout sameeyaan waxa loogu diraa lacagtooda crypto loogu diraa dadkeena Soomaalida ee jooga dhulka Soomaaliyeed marka transfer degdeg ahaana waa loo isticmaalaa cryptada fursadaha kale dheer tahayna waxa weeyaan waxa jira fursado trade-kan iyo waxanba ka madax bannaan oo la yiraahdo mining oo in cryptadii dadka dee kolley horumaray baa mining ka sameeya iyo sidoo kale in coinska mararka ay soo shaac baxayaan suuq geyn loo sameeyo oo coins la qaybiyo hadhow tole markii la keeno shirkadaha waaweyn ee exchange-da markii la keenana aad dee ayr gadan karto adoon wax lacag kaaga bixin disadvantage-ka haddaan sheego ay ku yar kala duwan labada qaybood ee suuqaba haddaan ka yar sheego disadvantage-kooda forex oo kale waa high leverage bay leedahay khatarteeda badan leverage waa awoodsiin wax la dhaho
marka haddii adoo high leverage isticmaalaya aad lacag badan iska geliso hal mar buu akoonka aad haystaa kaa guban karaa amba lacagtaadii oo dhan baad ku waayi kartaa sidoo kale waxaa jira emergency news waxa la idhaahayo newsyada soo baxa haddii qofku meelo laga eegaa jira hadduuna iska eegin lacagtiisa uu ku waayi karo amba akoon hadduu leeyahay akoonku kaga guban karo sidoo kale disadvantageka waxaa kamid a barashadeeda dheer kolley soomaalida taas waa saamaysay inay barashadeedu dheer tahay dad badan baana intay muddo bartaan ka caajisay iyagoon faa'iidadii weli gaadhin waxay kamid tahay disadvantageka foregasta faa'iidadoo kale way hooseysaa baa la idhahdaa marka la eego waktigay kugu qaadanaysa inaad faa'iide macquula ka samaysaa wax la odhan karaa wax kaga fiican kiribtada kiribtada haddaan disadvantageeda dhowr qodob ka yar sheego waa high fertilitygu waa soomaali ahaan wuxuu noqonayaa waa dhaqdhaqaaq aad u badan dhaqdhaqaaq aad u badanna riski buu keenaayo dee sida dhanka kaleba faa'iide aad uga samayn karta degdega khasaare degdegna waa ku gelin kartaa marka muuse wax iska daruun ma jire meel walba khasaariyi waxa jira laakiin riski management qofkii isticmaala ee dee aqoontan barta meelo lagu bartaa jiro Somali Finance Club ayaa u hormuude risk managementka waa ustaad Khalid baa dhigay ciddii barata dee way ka badbaadi kartaa high fertilitygaasaan filaya mararka qaar oo kale waxaa dhici karta disadvantage u noqon kara in wallets la jabsado oo amba shirkadaha qaar la jabsado waa dhici karta sharci la-aan oo kale ayaa kamid ah disadvantagekeedu wadamo badan weli way diidaan inkastoo laakiin hadda wadamo badan ay ogolaadeen oo qaar lacag ahaan iyo maxaa la dhahaa transactionska in wax laysu wadaarsada ay dhacaan scammers baa jira in coinan beena lasoo dhiso oo adiguna aad oran karto coinkan dhowr cishaba uu qaraxsan yahay aan iska galo kadibna dhulka kugu tegi karto lacagtaadii ku waayi karto marka in aqoon bay u baahan tahay wax walba aqoon kama soo haraan haddaa aqoonta u baahan tahayna dee hoygii baad joogtaa Somali Finance Club kuu tilmaami maayo marka haddii aan halkaa kaga gudbo disadvantagekeedii iyo advantagekeegiiba oon dhanka mustaqbalka ka yar hadlo foregasoo kale waxaa dhaca suuqa ugu weyn dhanka onlineka marka isku yar halayn buu leeyahay maadaama ay dowladihii dhex maamulayaan criptona mustaqbalkeeda haddaan ka hadlo de waxay ku dhisan tahay blockchain bay ku dhisan tahay blockchainna waa halka dunidu usii guurayso blockchainkan aad maqasho looma isticmaalo uun criptoe de waxyaaba badan oo caafimaadka iyo AI-ga kamid ah loo isticmaalaa marka maadaama dunidii e-payments ay u guurayso oo lacagtiiba in jeebadka lagu qaato amba gacanta lagu hayay kasii baxdaba e-payments aan isticmaalno hadda de blockchainna waa halka loo guurayo marka mustaqbal dee aad wanaagsan bay leedahay sidoo kale wadamo badan baa imka sharcigii siinaya cripto dee si fiican u soo dhaweynaya oo qaarkood ay maalgashanayaan dhanka kale cripto waa fursad maalgashiyo cusub qofkii hadda ka faa'iidaystana dee mustaqbalka uu dee faa'iido badan ka samayn karo sida kii dee dhowr sano ka hor bitcoin maalgashaday uu maantaba dee isagu faa'iido u jeego lacag badan dee uu ka dhaxlayo marka inahaasaa kusoo koobi doona kolley waan ka hadlay disadvantagekii waxyaabay kala duwan yihiin iyo maxaa la dhahaa mustaqbalkiiba marka waxay odan lahaa un taladeeda u dambeysa waxay noqonaysaa un inaad cripto dadka ku cusub ay meelaha laga bartaadaan wax walbana barasho kama soo haraana inaad barato waa muhiim intaanad haddaad iska aado waa khasaarun baad kala kulmi doontaa marka labadaba trade way leeyihiin cripto iyo forex labadaba trade way leeyihiin waad ka trade gareyn kartaa aqoon bay ay u baahan tahay laakiin halka criptodu ay dheer tahay investment inaad maal gashan karto ay dheer tahay marka labada dhinacba waad ka wardooni doontaa laakiin marka hore aqoonta horreysii baan ku odhan lahaa waa waqtigaanan sii dheerayna aad baan idin salaamaya macallimiinta iyo gruubkayga iyo ardaydana dhegeysanaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu